وفرصة لهاي ونسيه سبحانه وتعالى وأي تهينين كفايدي سنه صدح الرماد أيام مهمة إنه كنت ذاله وقرآن يا قيام يا صيام وين ودني هربا وين ودني لكن وحوشينينا إلى إنه إلى إنه أنا إنك كلاقوين تذكر كذا أيامهن وحيرة مشغولية مركا عيد وسود واتي هوله هذا إيه الشقة هذا مركا إلا يسكو هذا فرصة أن إنه قالنا فرصة لضيع كرين أنا هين وحين ستور تاجل هاي مركا قيام الليل والاعتكاف في المسجد لبدا الرباط وآد الله بدية طبعا كدنبه نبينا وبدين جري صلى الله عليه وسلم قيام إن هبينك عبادة ليسوا تاغو قيام كاسي هبينك حق هرانا ونقون كرا حق دمنا ونقون كرا نبينا عليه الصلاة والسلام جمع أبو كتشدي صحابة واتو كذين قيام كاس تراويح ذا يا صلاة الليل لبدا بو نقون كرا علماء الإسلام waxay u badan yihiin صلاة الليل ka habeenkii la tukanaya cadad muayana oo aan la dhaafi karayn aan lahayn sida daraadeed qofku inta uu kari karo inuu ku dadaalayo oo tukanayo taa macnaheedu markaa waxa weeye kii kara taraawiixdu tukanaya macal witriya kii doonaana qiyaamul leylku ku qaabsanaya kii doonaana labadaba uu israacin karaa iyadoo witriga uu xagga dama marinayo waayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa witraani fii layla laba witri habeen lagama wada dhigo اجعلوا آخر صلاتكم وترا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا صلاة هبين كي تكن إنسان من الدنبيسية يلا لبدا حديث الإسلام آخريه إن لما يسترى لو لما يسترى صلاة هبين كي حبتها كليا وتر الله يرضى وهناك أسباب معينة على قيام الليل الرمات له sideeda oo aynu soo wadno akhri doono ka saacidi kara habeenkii inaad cibaadada macaansato oo aanad ka daalin waxa kamida arimahaas qofku inaanu badinin cunada oo hadii uu qofku cunada badiyo waxa iska adkaanaya kicitaanka saynu ogsoonahay cunno badani waxay keentaa hurdo badan marka waa inuu iska fududeeyaa gaajo ka cabsigeeda aad ha u cuncunine waxba noqon maysid intaa yareed sooman tahaye cunnada ha badin aadaabta waxaa ka mid a shaqo badan inaanu qabanin maalintii iska fududeeyo ayaamaha uu cibaadada ka macaashayo ka faa'iidaysanayo shaqadii kululayd ama inuu fasax ka qaato ama lasoo fududeeyo aadaabta waxaa ka mid a maalintii inuu qofku yaro seexdo القيلولة بالنهار ومالكي هداد ساحته وحاد كو سهلنانا يناد هبينكي عبادة دو كعضة آدابته وحا كميدا إنو دنبغا اسكايرا يقفكو مالنتي قفك عاسقا عبادة دو يكو علوستاهي عاسقا عبادة دو يكو علوستاهي سيدا درادد مركزتو دنبغاقو يرادو عبادة دو حادو هليسا فضايت فربضان يا فرحات waxaa jira waxyaabo ku saacidayo xagga baatinka ah asbaabtii daahirka ahayd ee muuqatay bay taasi waxyaabaha baatinka ana waxa kamid ah ku saacidi kara salaamatu alqalb inaad qalbigaaga wanaajiso oo dadka ay saamaxdaan oo naxliga iyo nacaybsiyaha aad ku yarayso cibaadadu way ku sahlanaanaysaa khawfun ghalib wa qisaru al-amal cabsida ilaahayna inaad kordhiso yididiiladana yarayso ood anbabax diyaar u tahay inaad aakhiro u anbabaxayso markay niyadaada taasi ku jirto cibaadada waad badin karaysa aakhiro xusuusanta waxaa ka mid ah an yacrifa fadla qiyaami alleyl qofku inuu ogsoon yahay oo diinta ka barto cibaadadan uu gudanayaa fadligay leedahay
shay walba markaad taqaano macaashkiisa iyo faa'iidadiisa iyo fadligiisa kama daashid haddii kale cibaado caaduun buu eegaanaya dadkunbaad gurdaraacinaysa marka waa in loo sharxaa dadka waxa laga hela cibaadadan ilaa inta aayadooda sharaxda iyo axaadiida waynu ognay waxaa ka mid a xub ullaahi wa quwat liimaan wa huwa aqwa lbawaacith inaad iimaankaaga wixii siyaadinaya ku dadaasho ilaahayna jeceshahay subxaanahu wa tacaala jacaylka ilaahay waa waxa u weyne cibaadadana ku jeclaysiiya aadaabtaasi waa aadaabta ay had iyo jeer ka faa'iidaysanayeen ay ku dadaalayeen awliyadii iyo saalixiintii inooga horreeyay adduunkan ee cibaadada aada iyo aada dhadhanka ugu hayay cibaadada labaad ee ayaamahan uu nebi maxamed ku dadaali jiray waxa weeye alictikaaf fi lmasaajid masjidka in lagu ictikaafo lagu nagaado nagaanshaha masjidka lagu nagaanayo macnihiisu waxa weeye in laga faa'iidaysto bishan gebagabadeeda iyo habeenka laylatulqadriga iyo khaatumada bishani ay leedahay waa khalaawada diinteennu waa ictikaafku waa mashruuc oo nabigaa jideeye calayhi salaatu wasalaam sanad walba 10 cisho u dambeeyo ictikaafi jiray sanadkii u dambeeyeyna 20 cisho ka dhigay rasuulku sala allahu calayhi wasalam goobta lagu ictikaafaya waa masjidku ma saddexda masjida fadliga badan baa labada xaram iyo qudus mise waa masjid walba ma aayaddu waxay sheegtay masaajidun walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid marka culimada islaamku waxay u badan yihiin masjid walba in lagu ictikaafi karo laakiin waxa shardi ah masjidkii jamaca iyo jamaacada lagu tukanayo inuu yahay ee aanu masjidkii yaraa xaafadda iyo mawlici ahayn waxa shardiya qofku marka uu ictikaafayo waliba dumarka aan idhaahno laba shardi baa laga maarmaana in ciddii mas-uulka ka ahayd ay soo fasaxdo hadday oori ahayd ninkii waa inuu la ogolaado soo fasaxo haddii ay caruur tahayna waa inuu waalidkii soo fasaxo shardiga labaadna waxa weeye al-amnu min alfitna in fitna laga aamiya oo fitnadee waa la garanayaa qofkan cirdigiisi iyo diintiisi iyo sharaftiisii dad wax u dhima iyo akhlaaq xumo iyo qaawanaani waa inay meesha ka maqan yihiin axkaamtii ictikaafkaynu wadnaa muddada u yari waa wakhti kooban masjidka haddaad soo gashood fadhiisato ictikaafkii wuu jiraa kii isku xidhiidhsanaa maahe waa kii googo-aye gaargaarka ahaa oo laba siyood baa loo ictikaafaa midi waa ictikaaf mutawaasila oo 10 dambe isku xidhiidhsan oonad baxaynin midina waa mutaqadic oo mar kastood masaajka timaadana waad iska wadanaysaa marka aad ka baxdana wuu kaa kala go-aya ka horaana fadli badan uu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam ictikaafku ma shardi buu u yahay soomku mae shardi uma aha sida xadiidkii cumar uu caddaynayo cumar baa nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waqtigii jaahiliyadii waxaan ku nadray inaan habeen ictikaafo xaramka ictikaafka fuli buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam habeenna lama soomo qofka doonaya inuu 10 dambe ictikaafo goormuu bilaabayaa maalinka 20aad intaanu dhammaanin buu gelayaa masjidka habeenka 21aad intaanu bilaabmin in qoraxdu dhicin waa inuu sii galaa qoraxdu waa inay masjidka ugu dhacdaa uu la bilaabaa habeenkii ictikaafka isaga maxaa burinaya xagga fiqigiisa marka la eego laba arrimood baa burinaya ama kaa jabinaya ama kaa joojinaya inuu qofkii ka baxaba masaajidkii iyo inuu xaaskiisii u galmoodo galmadaasina waa xaaraan oo qur-aanka ilaahay uu ku diiday subxaanahu wa tacaala macnaheedu wuu kaa kala go-ay way ictikaafkaas qofka muctakifka ee masaajidka cibaadada u fadhiya khalaaweynaya maxaa u bannaan arrimahan soo socdu sharcigu u bannaayay ayaa loo ogolaaday alkhuruuju lilxaaja inuu muraadkiisa u bixi karo kaniin buu ka soo qaadanayaa farmasiga waxaajatu linsaan baahida bani aadamka xamaamkuu tegayaa ka soo weysiisanaya ama ka soo maydhanaya udheelkuu ka soo qaadanaya raashin waa qadarka loo baahan yahay isagoon sheeko badan iyo haasaawo iyo warwaree kala gelayn intii loo baahnaa wey waxyaabaha u bannaan waxaa ka mid a intuu masjidka fadhiyo wixii mubaaxaa loo ogol yahay hadduu telefoonna cid u dirayo haddii uu markaas qof la sheekaysanayo arrimaha iska mubaaxeen dembiga ahayn
qofka muctakifka ah waxaa loo ogol yahay qof soo booqday inuu dabadda ugu bixi karo siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa intuu dabadda ula baxay yaro galbiyey oo uu si yaro raacay intuu masjidka ku jiro waxa u bannaan weysadii iyo maydhigii iyo cunnadii iyo xaajo gudashadii waxaa isaga bannaan inuu furaash meel dhigan karo oo nebigu xaggaa yaro dambe meel yar buu mara ku xidhanaya ama caw yar oo uu cawradiisa ku qariyuu soo yaro urursado soo koobo arrimahaas waa arrimaha u bannaan qofkan muctakifka ah ee masjidka dhexdiisa fadhiya aadaabta waxyaabaha habboon waxaa ka mid a ajriga kuu sii kordhin karaa inay niyadaadu wanaagsantay oo aada cibaadadan ka faa'iidaysan karayso waa inaad dareentaa inaad khalaawo ku jirto markaa ducada iyo diinta iyo dikrigunbaad ku dadaalaysa intaad halkaa fadhido wax muraada adigoon lahayn inaad baxdana waad iska ilaalin qofka ictikaafkiisa xidhiidhinaya wey almuxaafadatu calaa acmaali alyowmi walleyla camalaha jiro wardiya iyo adkaar la akhriyo gelinka hore iyo gelinka dambe oo nebigu noo jideeya calayhi salaatu wasalaam iyana waad ku dadaali alxirsu cala alisticdaad cala alistiqaadi qabla salaa meeshu inaad arbeerka ka dhigatay iyo meel hurdada lagu dheeraysta maahee salaadaha intaan la gaadhin hore u diyaargarow oo hore u kac oo adigoo daahira waqtigii ha la gaadha ama adaanka ama qiyaamka alikhaaru min annawaafil shay kastoo sunnaa inaad badiso ma qur-aankiiba ma dikrigiiba ma sadaqadiiba ma wardigiiba wax wala sunno aba istixaabu bacdi alkutub inaad kutubta qaarkood qaadato ama cajaladaha dhegaysato oo akhris iyo dhegaysi aada wakhtiga ku buuxiso si aanad tilefoonkii iyo wax kale aanad ugu mashquulin waxyaabahan la yidhaahdo had iyo jeer imanka tawaasul alijtimaaci baraha bulshadana waa inaad iska xidhaa fiican meelo kale ay kula kacayaan wixii akhbaar iyo wararood ama mar yar eegto ama wixii kheyrood ka faa'iidaysato mooyaane waayo waxaynu ognahay siday naftu u jeceshahay iyo inay wax badan ku weydaarinayso saa horeba aynuu soo tilmaannay waxaa habboon inuu yareeyo qofku hadalka cunnada iyo hurdada jooji lama laha laakiin sidii uu suuqa uga waday iyo masjidka uga wadin ilaa macnaad meesha u fadhida khalaawad ku jirtaa wacdigaa habboon inaad ka qayb qaadato cibaadooyinka halkan lagu dadaalayo waxaa ka mid a wacdiguna waa mid aad ummadda u jeediso haddaad aqoon leedahay ama aada dhegaysato haddii aanad adigu waxba jeedin karayn qofku wuxuu kari karaa 24 saacadood hadduu masaajka joogo 12 ka mid ah ama 8 ka mid ah inuu cilmi qaataa buu kari karaa xataa kutub fara badan baa 10 cisho la dhammayn karaa haddii dadku ay ku dadaalaan waqtigooda inay ka faa'iidaystaan kutubahan yaryara kooban ee 5 cisho iyo 10 lagu dhammeeyo haddii intaasoo maado lasoo qaato 20 qof 30 qof 100 qof ay isla kaashadaan waxay ka saari karaan kutub fara badan oo ay aqoon ka qaataan